salaamayaa dhammaan nabadoonnada isimada waxgaradka dhalinyarada haweenka cuqaysha bahda saxaafadda inkas iyo raggii guurtida ahaa ee juhdiga badan ku bixiyey inay ka taliyaalin aayaha dalka iyo dadka mandaqada dadka ku nool cid kastaba ha ahaadeen waxay maanta farxad weyn bay noo tahay shirakanu sababta oo ah anigoo ku hadlaaya codka haweenka waxa weeye dareenkayaga ayaanu aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay sababtoo ah waxaan nahay dad dhibaatada u nugul annagu waxa weeye maamulka Soomaaliland sheegta jaanisyo badan buu helay saalbu dumarkoodii barakiciyey wuxuu doona ku sameeyey laakiin annagu waxaanu leenahay ragna difaaca dal iyo dadna difaaca baanu leenahay waxaan u sheegayaa sanaad bari maaha sool sidaad u gashay gabdhihii reer sool loo geli maysid iyagana waxaanu jecelahay sidaan annaga xurnimada iyo midnimadayada raggayagu aayahayaga uga tashanayaanin inay gabdheen kuwa soolla ay aayahooda iyo dumarkooda u turaanin dumarka sida raggayagu noogu tureen oo ciidankii qalamka siday ee deegaanka Soomaaliland wax ka qaadan jiray ay u noqon waayaan caadaqaatayaal goobtii la yidhi raggiina laaya oo gabdhihiina kubsada oo gabdhihiina caruura ku rara raggii diiday ee ka dhiidiyey sidaasaan annaguna waxaanu jeclaanaynaa gabdhuhu aanu baaqa u diraynaa hooyooyin baan nahay haween walba oo Soomaaliyeed waxaanu dumarkaan xuduud ka lahayn haweenka Soomaaliyeed oo dhan baan dib loo jecelahay sababta oo ah dhibaatada dhacdaa waxay ku dhacdaa hooyadu saameyn bay ku yeelataa waxaanu u sheegaynaa in annaga raggayagii hadday ciidan haayeen ay yihiin waxaanu dad soo jireera baanu nahay dad isticmaal gubaysada ma nihin taariikh baanu caalamka iyo Soomaaliya ku leenahay daris wadaag bay nahay waxaynu ku heshinay daaqa inaynu wadaagne inaynu isku soo xadgudubno kuma aynan heshiin markaa sidaa la arkeed arrinta waadna aragtaaniin rag iyo dumar waxaan u taaganahay daafaca dalkayaga iyo dalkayagaanu u taaganahay waxaanu ku hurdnaa waa dadkayaga iyo dalkayaga waxaan u soo jeedinayaa beesha caalamka waxay dhibaahdaan beesha caalamku waxaanu dhibaatada ka dhowraa oo aanu diradda saaraa haweenka iyo caruurta baan xaq dhowraabeen beeyayna sheegin beesha caalamku waxay xaq dhowrnahay laascaara wixii ka dhacaayay gabdhihii masaakiintaa sidii loo galayay dadka la barakicinayo waxaan aniga dareenkayga ku kacnay gabdhihii lagu dhaawacayay carmale darada xagale baa dareenkayga kadhisay iyo sidii loogu soo dilay iyo ragayagii la yidhi odaya bal waxa ku haysaaniin dalkiina iyo dadkiina annagu dad hadala baanu nahay dad dhaqaya baanu nahay dad dad buuxa baanu nahay waxaan sii jiray wax ka fiican annagaa raggayaga siinaya kuwa inaynu ku jiraysaana ma jirto waxaan hooyo kastaaba iyo dad kastaba waxayna diyaar u yihiin dalkooda iyo dadkooda inay difaacdaaniin waxaa ku leeyahay muusow riyaad ku ruuntay awal baad waxaad ku hafatay laascaano laascaanana waanu ka xunnahay reer laascaano dhirta ku dhacday waanu ka xunnahay laakiin warsagaan waxaad hasheeday geed walba cuntaya markaad ciin daaqdin baa lagu furyaaba oo maalintaa warsagada u soo dhigatay halaagaadii maantii joogaya haddii adaadii daandaansaday ka guro annaguna aayahayagii baanu ka tashanay raggayagii iyo dumarkayagii carruurtayda dalkayga isku tiirsannahay waxa weeye dhaqankayagaanu ilaashanaynaa magacayaga ilaashanaynaa warsagadayaana la yaqaanaa inaan isticmaal gubaysan ma jiro reerka wada gubaysto cid kastoo noo badca dhigtana waa iska celinaynaa